Julius Malema oo ah hogaamiyaha xisbiga EFF mid ka mid ah mucaaradka dalka Koonfur Afrika ugu saameynta badan ayaa kashifay sir weyn oo laga qarinayo shacabka reer Koonfur Afrika. Julius Malema ayaa sheegay in gebi ahaanba ciidamada dalka Koonfur Afrika ee ku sugnaa xadka Rwanda iyo Congo ay la kulmeen waxyaabo aad u dhib badan isla markaana ay tahay in baarlamaanka marka la furayo sanadkan February in la joojiyay dabaaldegii bareedka oo inta badan dhoolatuska ciidamada difaaca dalka Koonfur Afrika ay ku muujin jireen oo waddooyinka la xiray marka baarlamaanka la furayo. balse dabcan arrintani waa ay ka qarsaneen dadka Koonfur Afrikaanka maadaama ay u haysteen oo kaliya oo ay tahay inay tacsi qaran u taalo weliba ciidamadu gaar ahaan ay tacsi u taalo maadaama tirada xitaa la sheegay dhimashadu intaa ka badan tuiro. wuxuu kaloo sheegay Julius Malema in ciidamadooda la qabsadaba oo la kortakan yahay oo ay ka fasax qaataan ciidamo Rwanda iyo M23 ka tirsan hubka laga qaatay macnaha maxaan ku yiraahdaa wax tala oo aysan hayaan aysan jirin oo just in dowladda Koonfur Afrika laga sugay inay diyaaradaha ku soo daabulato geysata meesha hadalkaas ayuu sheegay oo aysanba ahaynba ciidamo xor ah uu yiri lagana yaabaa uu yiri weliba in madax furashana la weydiiyo uu yiri marka waxaa qasab uu yiri in safaaradda diblomaasiyiinta Rwanda ama safiirka Rwanda ee South Africa la waco oo dalka Rwanda loo diro oo arrintaas war naga soo si ay tahay in la yiraahdo uu yiri in gebi ahaanba madaxweynahaasi jilcan loola hadlo la yiraahdo xasaas uu sameysay iyo hadalkiisina wuxuu yiri hadal safarankeena iyo madax banaanideena wuxuu yiri dhibaato ku ahaa qaabka uu la hadlay madaxweynaheenu yiri marka Julius Malema ayaa muddaa inuu waxoogaa dadka inta badan marka South Africa arrimeeda laga hadlayo qadiyada xooggan kale inuu yahay marka arrintan uu sheegay dadka shacabka Afrikaanka waxay sheegeen inay ahayd wax dawladda ay ka qarisay inta badan horta waa nin mucaarad ah oo sheegayo laguma kalsoonaan karo laakiin xigashadu xigana wuxuu leeyahay ninka ku xigeenkiisa ee xisbiga mucaaradka ayaa la hadlay ciidamadu leeyahay oo aanu maqlay saas wuxuu sheegay inuu leeyahay inta badan waa nin siyaasi oo hadalkiisa lama dhayalsan karo. We are being modest when we say if Rwanda is found that it has killed our soldiers, it must be held responsible. It was Rwanda. It was Kigali, it was Kagame who killed our soldiers. The support he gave to M23, and that M23 acting in a disrespectful manner they did to the South African soldiers. They knew they've got a backing of Rwanda. But now, why do you want to treat Rwanda like it's a friend, like it's progressive? Rwanda was prepared to take immigrants. warbixintan ayaa warbixintii ugu dambeysay ka soo kortay arrimihii Rwanda oo ciidamada Koonfur Afrika halkaas dhibaato weyn lagu gaarsiiyay ayaguna ay ku eedeynayeen dowladda Rwanda oo dowladda Rwanda ay eedeyntaas iska fogeysay marka madaxda Koonfur Afrika iyo Rwanda wada hadal ayaa u socday la sheegayaa taasoo ah in ciidamada free looga dhigayo maadaama la arkayay ciidamada Koonfur Afrika Rwanda oo toos u galay meesha oo gawaarida calanka Rwanda wato oo aanan qarsanayn marka waxaad moodaa Julius Malema inuu xoogaa hadalkaasi qarxiyay oo soo qarxiyay oo kaliya laakiin shacabka bas way ka qarsanayeen marka waxay ka soo kordhay arki doonaa.